بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta xirka baa igu soo socda. I think sanka dhan waa caburan yahay. maanta waxaan maaragtay bilaawnaa cashirkeenii afraad. Actually maaragtay sida runta cashir maaha, laakiin waa imtixaan oo kale. imtixaan waxbaa kan ixna cashirkii hore usoo qaadanay ayuu maaragtay fiirinaya inaa wax ka baratay. saddexda cashir oo kasii horeysay kelmadahan baranay, verbka aan baranay waxay ahaayeen kuwan maaragtay furaha iyo buugga iyo maaragtay inaad garatid xasuusatid wuu ku saacidaya. imtixaan adi si qaad fiiri inaa xasuusanaysid maaragtay. Okay, webka aan joogno waxa waaye Madina Arabic, www.madinaarabic.com. youtube-kii waa Luqi Yarawan. Facebook waxa waaye maaragtay tafsiirka quraanka. Okay. cashirkii afraad aad tegeysaa lesson 1 qaybta afraad. Then tusaalaan ku tusinaya anika inaan kaaga jawaabo maaha, qish waa moogta adigas imtixaan. laba hab waxaan soo baranay oo su-aashku weydiinaya maa haadaa, kani waa maxay, oma tan labaad oo ah haadaa qalamun, kani ma qalin baa, saas oo kale. maa haadaa marka wixii ma garanayo qofku ku weydiiyey, marka uu sheegaysaa wuxuu yahay waa sidaa waxaa. kani ma qalin baa, qofkii qalin inuu gartay ama u maleeyaa. maya ama haa waa ka hormarinaysaa jawaabta, markaas ka jawaabaysaa. Okay, qalinkaaba ku hor tusaale idin tusinaya. maa haadaa meesha ku qoran tahay maa haadaa, si loo aqriyo waa soo dhiganay. haadaa najmun, kana ma xidig baa, maya. haddaad garanayn haaba iska leedahay marka maada baran. haadaa qalamun, maa haadaa, haadaa qalamun, kana ma qalin baa, waa qalin, waa kuu sheegay inuu qalin yahay magta. haadaa baabun, kana ma baab baa, albaab baa, maya. haadaa kursiyun, kana ma kursi baa, maya. marka midka uu yahay baa click ku samaynaysaa. haadaa qalamun dhibic baa ku samaynaysaa. Okay, saas oo kale. haddaa rabtid inaad hubsatid inaad saxda inaad qaladay, anima ii baahdan inaa isoo laafatid, webkaa tigi kartaa ama way weydiin kartaa haddaa garan weyda webka xataa. waa taabanaysaa wuu kuu sheegaya. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. anyway sida caadiga wuxuu dhahayaa maaragtay هذا قلم. waa garanaysaa inaad sax sheegtay. for some reason, technical reason, هذا قلم. dhawaaqo yani I don't know why, for technical reason. Okay, هذا قلم. oo final lagu dhawaaqa haadaa qalamun. so waxaad ogaanaysaa inaad mid saxa aad taabatay. casharkeena maanta intaas ku egyahay. kan iyo kan waxaad samaynaysaa ka jawaabaysaa ilaa aad ka baratid. please ha gudbin. markaa baratid that means waa baratay. casharka kale markaa u gudbaynaa. Okay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.